mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa garoonka weyn ee Hargeysa Stadium ka furay maanta koobka horyaalada oo ay ku kulmi doonaan kooxo kala duwan oo ka socday gobolada dalka waxaana furitaankiisa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland oo iyadu hirgelisay inay ciyaaraan kooxaha kala duwan haddaba dadkii ka soo qayb galay ayaa dareenkooda ka hadlay mar sida u arkaan marka koowaad Ilaahay baa mahad leh marka labaad maanta insha Allah waxaan ku ciyaaraynaa kulankii koowaad ee horyaalada Soomaaliland waxaan horyaalka gobolka Saaxil kooxda DB World sanadkii hore champion waxaan soo soo gashay inaan ka qayb qaadno alxamdulillah sanadkan oo markii labaad aan ka soo qayb galno waan Ilaahay mahad waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan koobkan tartanka meel fiican ka gaarno insha Allah koobkan aan meel fiican gaarsiino magacaygu waa Barqa Xasan Faarax inta badan waxa aan diiradda saaraa aniga kamid ah saxafiyiinta ka hawlgala dalka ciyaaraha dalka waxa maanta magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ee ka bilaabmay ama ka furmay tartanka horyaalada ee Soomaaliland oo markii labaad si xiriir ah ee sanadka loo qabanayo sanadkii hore ayaa waxa lagu qabtay ee magaalada xeebeedka Berbera ee xarunta gobolka Saaxil iyadoo halka ay ku guuleysatay ee kooxda Goodir ee ka socotay caasimadda Hargeysa Stadium oo maanta uu furay madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa lagu furay oo ama lagu iba furay labada kooxood ee ka kala socda ee Togdheer iyo sidoo kale magaalada madaxda ee Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ee kala ah Gaashaan Burco iyo sidoo kale DB World Berbera iyadoo ciyaarta qaybtii hore ay ku soo dhawaatay in eber oo la ismari waayay oo qaybta dambe bacda salaadka la sugayo horyaalkan ayaa ka duwan horyaalkii hore iyadoo ay ka soo qayb galeen 18 kooxood oo markii hore ay ka tirayaraayeen waxa loo eegi doonaa ama oo loo maxay haday kooxaha adag iyo sidoo kale ma jirto koox jilicsan ma jirto laakiin soo kooxaha qaar baa waxay sheegteen awood ka badan awoodaha kooxaha kale leeyihiin waxa lagu kala bixi doonaa Hargeysa Stadium oo sanadkan marti geli doonta maxamed Cabdilaahi Awood way magacaygu waxa ku sugan garoonka Hargeysa Stadium maanta ciyaartii koowaad furitaanka horyaalada Champions League ee lagu furay kooxda Gaashaan Burco iyo DB Berbera yaa qurux badan bay ahayd haafka hore ku soo maantay eber waxaan rajaynayaa haafka dambe insha Allah kala barin doono hal eber ama Gaashaan Burco ama DB laakiin haafka dambe waxaan aaminsanahay ciyaar la isweerari doono la kala barin doono geesta kale waxa iyaduna ka hadashay Dr. Adna Aad Ismaaciil faraxsanahay ma sha Allah garoonkan oo saa qurux badan iyo nidaamka leh aad iyo aad baan ugu faraxsanahay guul iyo gobonimo u soo hoyatay Soomaaliland way ya taageersan haya ay waa wada ubadkaygi waa hooyaan ayaan ka jeclay adiga taageersan tahay bad waa wada jeclay dhamaantood halkan joogna Hargeysa Stadium habeenimada lagu ciyaari doono in kooxi ka dambeeya waa ma sha Allah maxay ku darsantahay waxaan ku yiri gadar bari baan inta haysanin maantana waxay gaadhay inay koobkii adduunka lagu ciyaaro inaguna